golaha deegaanka degmada Badhan iyo tuulooyinka hoos yimaada ayaa dhawaan waxay ahayd markii ay soo gaadheen magaalada Ceelbo ee gobolka Sanaag ay la kulmeen bulshada qaybaheeda kala duwan iyo waliba guddida magaaladani Ceelbo xildhibaanada iyo waliba gudoomiyaha cusub ee degmada Badhan Cawd Cali Xiiray ayaa kulan la qaatay balaaran bulshada magaalada Ceelbo ee gobolka Sanaag waxayna ka wada hadleen sidii cashuuraha dawladda hoose looga hirgelin lahaa magaaladani Ceelbo mar maanta la dhaxqaaday buuqbaaqiyaha cashuur media ayaa dadku waxay soo dhaweeyeen sidii cashuurtaasi looga hirgelin lahaa isla magaalada Ceelbo oo kamid ah tuulooyinka hoostaga degmada Badhan ee gobolka Sanaag cashuur waad mahadsan tahay maadaama aad fikirkiisa qof walba ay cabiraysid waxa weeyaan uu hadaan Maamud Maxamuud Faarax anu waxaan aaminsanahay in cashuur la qaado waayo dawladnimo cashuur ka horeysa ma jirto waxa weey waxaan qofkana wax yeelayeen booyintiyo markii la qaado way ururaysaa lacag way noqonaysaa waxa jirta hadda in magaalada ay ka soo baxeen xildhibaano loo sacabiyay ama magaalada soo saartay inay iyaguna magaalada wax u qabtaan bulshadooda inay ka soo dhaxbaxay inay wax u qabtaan iyaga soo dhaxbaxday waxa la rabaa inay dhaqaajiyaan hawsha guddida magaalada xildhibaanada maamooyinka dhammaan dhalinyarada ururada dhalinyarada inay hawsha dhaqaajiyaan sababtoo ah magaalo aan cashuur lahayn dawlad kama dhisna waxa weeye waad ogtihiin ciidamadii gobolka Sanaag intay mushahar laayeen waxa weeye maanta inta ma mushahar laadeen hadaynu isku tashano inagu oo cashuurtana shirkadaha la qaada gaaraha la qaada gaari iyo shirkad xaq u tagaa waa in meherad walba laga qaado waa in guryaha dhisan laga qaado waa in caanaha laga qaado waa in hilibka laga qaado waa in hadeeraba kuuroyo cid allaale cidii wax ganacsanaysa inta kastaba hal ekaade ganacsi oo dhan laga qaado waxba yeelaymayso pointiya laga qaaday point 1 point 2 point 3 point 4 point 5 mid walba inta ay kala wayiin baa loo kala qaadi karaa sababtu waxay ku tahay hadaan reer Ceelbo nahay wax kala ka shaqeynaa laakiin mustaqbalka magaalada kama shaqeyno marka cashuur la qaadayo cashuur qaadistu waxay u baahan tahay wadada siisam cashuur la iskama qaado anigu hadda inta socdo miyaa magaalada cashuur ka qaadi kara tani waxay noqonaysaa wax baad oo kale ah hadii la yiraahdo laakiin meesha markii maamul loo sameeyo dawladda hoose laga sameeyo saldhigii booliska la adkeeyo jumwaadkii la keeno wixii shuruuc dawladda lahayd oo dhan meesha laga fuliyo cashuurta waa la qaadi karaa la ogaado meesha ay ku heerayso inta qaadaysa shaqaale loo sameeyo hadii dabagal ay leedahay waxyaalaha soo dhan baa lagu sameyn karaa cashuur qaadis laakiin konsol baa la sameeyo Ceelbo waxaan rabnaa in Ceelbo cashuurta laga qaado saas oo kale waxba kuma qaadmaan marka aniga hadda xilliga kan aynu joogno ilaa la helo maamul meeshii uma arki karo wax cashuur oo meesha ka socon karta ay jirto midda kale marka cashuur la qaadayo waxa la sameeyo wacyigelin bulshada la isugu yeeraa banaanka la isugu baxa cashuurtu waa wax dadka danta ugu jirto waayo sababta ay ku tahay dal walba wuxuu ku hormaraa ama mantaqad walba ama degmo walba waxa weeye waa maaliyada iyada laga qaado xagga caafimaadka lagu kobciyaa waxbarashada lagu kobciyaa biyaha lagu kobciyaa dhaqaalaha wixii adeeg bulsho oo dhan baa lagu kobciyaa marka dadka waxay iska raadiyaan wax dad kale oo laga soo qaaday waxa inay wax ku helaan hadda dad badan waxay ku agdacooda Puntland maxayna ka soo gaaray Puntland hadda wax ku darsato baa wax ka soo gaaraya waxa wax ka soo gaaray kabarka qaadka iyo maqaaxida shaah iyo hadii baahi ku rooyahay islaamaha irbadaha meesha la fadhiya iyaga cashuuraha laga qaada marka qofku waxa la yiraahdaa wax qabso waxa lagu qabtay عالم كسيدا وحصل على وحشدا ورتي أبو حلا صوب حلو ما وحلو قبل كرا مركا هرجو سلا صار حتى الحلية كان يلا دي ما بالبكتير وكان السنين بعشور لقى قاضية أنا قد أفكر كاسي فكر معقولة وبيلا نقوم واي قوة تهدر نقول راسي أي تمن عنو ما تجين ما قالوا هو شو قرنتي ما تجين لكن هدي عشور لقى يسيسم كيس اللي حرايو هذا مثل ويريا بقول كيف بقول وأنا واحد وناكسر واحد بشذ وناكسر الرأي أنا أقول عن قبائل كذي قفان شخصيا عن قبائل كذي وحيقول الكركرتا
bulshadu iyada ayaa samaysata systemka ay ku horumarayso ama dakhli ugu soo baxay iyada danteeda waa bulshada danteeda ma wax cid kale looga faa'iideysto way faa'iidaduna waxa weeye waa waxaagii dakhliga adigu aad urursatay oo aad kaysatay oo wax ku qabsanaysid way sidaa darteed waa ka hirgeli kartaa haddii bulshadu ay isku tashi samayso oo ay ka faa'iideysato sida bulshooyinka kale caalamka ee meel aan dakhli lahayn waxba kama filaan sida dhirta sida nadaafadda sida haddii ilaahay waa ku rooya caafimaadka sida haddii kale nabadgelyada siyaasadda waxaasoo dhan waxay ku socdaan waa dakhli iyo dhaqaale iskama socdaan marka bulshada horumarkeeda qayb ka mid ah weeye waa waxa aad adigu leedahay oo aad isku ceshanaysid oo adigu dantii bulshada lagu fulinayo waa ka horgeli kartaa haddii dadku ay gartaan inay iyaga dantoodii muwaasalaad ku wadato waa su'aal wanaagsan mid qof kasta inuu fikirkiisa ka hadlo ra'yiyan way fiican tahay anu waxaan qabaa haddii systemka dawladnimo dadku qaataan inay cashuurta ka hirgeli karto cashuurtana dadku iyana u qaadan wax macnaha ee dadkan ururinaya qaadanaya waa wax danta guud oo magaalada wixii ka dhiman lagu kaabayo ma garat ra'yiyan waxaan qabaa dadku hadday isku tashadaan maamulka magaalada ay leedahay iyo dadku isku tashadaan in cashuurtaas hirgelayso inaga baahiyaheenana waxaanu urursano dawladuna waxnu ku dari karto ina magarat barnaamijkana waa hirgeli karaa haddii dadku isku tashadaan oo ra'yiyan aan waxaan qabaa maamulka magaalada iyo dadku isku tashadaan oo markii maayirku joogay dadkii dee joogay madasha cashuurta waa la isla qaatay in dadka lagu sii baraarujiyo baraarujintu way fiican tahay lagu sii baraarujiyo bacdeenna hawshaa la dhaqaajiyo ma garatay cashuurtaana laga qaado meheradaha hoose iyo meheradaha ganacsatada yaryar iyo tan waaweyn nin walba iyo karaamkiisa hawshaana saa loo dhaqaajiyo waana soo dhaweynayaa arrinta cashuurta waana mahadsantahay wariye booqashada ay usoo boqotay iyo fakirkayga inaan ka hadlo waa golihii degaan ee ugu horeeya ee soo gaadha magaalada Ceelbo lana kulmaa bulshada qaybaheeda kala duwan kalena qayb galaa sidii markaasi cashuurta looga qaadi lahaa dowladaha hoose magaaladani Ceelbo bulshadana ay markaasi ay la qaatay golaha deegaanka degmada Badhan iyo tuulooyinka hoos yimaada ee cusub ee dhawaanta ay bulshadu ku soo saartay qof iyo cod waa Axmed Cabdullaahi Ciise Axmed Cashuur magaalada Ceelbo ee gobolka Sanaag.